roob xoogan oo xalay ka daayay magaalada Gaalkacyo ee deegaanada hoos yimaada ayaa waxa uu saameyn xoogan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. roobkii xalay ka daayay Gaalkacyo ayaa waxa ka dhashay daad xoogan oo ku soo rugmaday xaafado badan oo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo. xarumihii waxbarashada ayaa la fasaxay sidoo kalena waxa adag in la soo gudbo xaafadaha qaar. shacabka ayaa ka barakacay guryahooda ilaa iyo haddana ma jiraan wax khasaare nafeed marka laga reebo burbur guryo iyo barakac. halkani waa xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. waxaa dhammaan barakacay shacabkii degnaa kuwaas oo ka cararay biyo badan oo u galay xaafadahooda. wadooyinka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxay isu bedeleen goob biyo badan kadib markii daadad badan ay ku soo rogmeen. dadka xaafadda Garsoor ayaa sheegay in biyahan ay ka yimaadeen dhinaca laamiga weyn ee magaalada Gaalkacyo. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo isla markaana saameyn uu ku yeeshay roobkii xalay ka daayay magaalada Gaalkacyo ayaa la hadlay TV-ga Universal. xaafaddan Garsoor baan degannahay ilaa iyo xalay roobku soo noogu bilowday nagu socday guriyihii waa naga dumeen meesha xaafadda saad baan looga barakacay. dadkii meeshaan joogay xaafadaha waa u jeedaan hadda dib meeshaan la aado dadkii qaar bay laqday. hadda gurigan waxa aan deganaa deedkii iyo wixii dhan waa isku dumay suuligii wixii waa isku dumeen marka xaafadda saad baa looga barakacay. haddana wax biyo hadda biyuuna mana socdaanba waa fadhiyaan waa fariisteen biyo dadka u fariistaan waxaan u maleynayaa hadda xaaladdu inay ka sii dari doonto ilaahay roobka ilaahay inoo soo celiyana waa maleynaynaa. qoysas badan oo ku noolaa guryo ka samaysan cooshada ayaa xilligan wajahaya guryo la'aan xoogan kadib markii guryahooda biyo ay la tageen. waxaana dadkaasi oo la hadlay TV-ga Universal ay ugu baaqeen maamulka iyo ganacsatada iyo shacabka reer Gaalkacyo inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. waxaan doonaynaa walaalayaal maanta haddii wax naloo qaban waayo mar dambe wax naloo qabanayaan garanayna ma jirto. maanta haddii wax naloo qaban waayo mar dambe wax naloo qabanayo ma jirto. banaanka xalay lama seexan ba ilaahay og yahay sida ay u taagan yihiin baa waaga u bariye sida ay u taagan yihiin baa waaga ilaahay u bariye oon been ku sheegaynin oon la ii cadaabaynin ma fahanta hadda inaad markay wax dhib dhaca hadda gaari soo qaadan leedeen bartaas idinkaba xalay kama dhaqaaqay ama waaba inta daaroosa gobolkana lagu aruurin lahaaba marxaladda xalay aan taagnayn. marka walaalayaal waxaan doonaynaa hadday dawladda tahay hay'adda tahay sida ugu quruxda badan inaad nooga adeegtaan. roobka waa u jeedaa guriyihii waa naga dumeen waan soo tusaynaa kulli waa baabeen dadka biyo waa ka guriyihii waa laga barakacay biyaa tif meel kasta waa saas. saameynta ka waran saameynta dee waxaan rabnaa wax ciid noogu shubo oo teendhooyinna siiyo noo daryeela hay-adahan rabna iyuu dhibaatay noo yihiin dhulkii waa u jeediin guryihii waa ku dumeen ilmihii waa lagala baxa hadda waa kaas dad baa hadda guryadooda kor saaran waa kuwaan u jeedan waa laga wada baxa meesha looga tago waaba sabaynayaan dadka biyihii jeedin xalay 12 saac wax seexaday male ana qof qaraabata iska ahaayay maanta meel u foofay male ilmo agoonana wax xiriiro xaafadda waa joogeedu waa u jeedaan mi magaala roobka dad haaya dawliyo hay'adiyo wixii wax loo dhiibi kara ilaahay dartiisa waxa nooga dhiibo. liban cajiib xaaji TV-ga caalamiga Universal Gaalkacyo.